بسم الله الرحمن الرحيم. waxa weeyaan doorta ka waran baad tiri doorashadu qorona waa loo sheegay madaxweynaha sheegay anu markii hore wada sheegay inay dhacayso qaran baan noo weyn waa la gooyay inay dhacayso marka wax shaki loo gelin aniga meesha iga muuqato waa ku talagalka waxaan ugu inay dhacayso sabab baa jinaysan hadda ma taalo sida ay ugu muuqataan marka loo eego nimka beesha caalamku qayb weyn bay ka qaadan jirtay dhinaca kharashaadka doorashooyinka maadaama beesha caalamkana way noognahay xaaladeeda bal halkay marayaan dib ma isugu soo noqdeen xukuumadda oo wada hadallo iyo xagee wax marayaan dhinaca beesha caalamka runtii markaan ka hadla beesha caalamka waxay naga taageeri jireen doorashada sida u soo taxanayd waxaanu qabanay aftidii dastuurka lagu ansixinayay beesha caalamka waxba kaba geysan gacan waxaanu qabanay doorashadii dowladda hoose beesha caalamka waxba gacan kama geysan waxaanu qabanay doorashadii madaxtooyada beesha caalamka waxba gacan kama geysan intaasoo dhan waynu soo qabanno innagaa wadnoo Somaliland baa waday markii ugu horreysay beesha caalamka qayb qaadatay waxay doorashadii baarlamaanka waxaanu goosanay markaa maadaamaanu soo galnay laba doorasho culus diiwaangelinaya aftii dastuurka casoo dhan inagu dhaceen inaan gacan weydiisano European Union iyo dawladaha kale deeqda bixiya marka komishanada saasaanu goosanay waxaa tagay aniga iyo Shuur Xaaji Baandare Nairobi aan tagnay waxaan la soo galay heshiis gacan weydiisanay European Union-ka oo wakiilkooda halkaa joognin beel la yiraahdo ahaa British gacan weyn siiyay noo diyaariyay inaan dawladaha deeqda bixiyo sideed dawladood oo safaaradooda wakiiladooda iyo hay'adaha deeqda bixisay USAID oo Sweden GTC Charmalka waxaasna waxay noogu shiriyeen safaaradda Sweden halkii baan ka qayb galay codsigaan weydiinay waxay Soomaaliland hadaan nahay intaasoo doorasho qabanay habkii dimuqraadiyadda qarashka badan ka bixi jiray amba marka qaadku inqilaab military ku sameeyay jirteen daldan eed ku hirgelin jirteen baan anigu soo doonaan wadnaa gacan naga caawiya marka way naga aqbaleen foom bayna siiyeen wixii aan doonaynaa ku buuxsanay waana caawina wayna siiyeen doorashadii baarlamaanka saasaan ku galnay marka waxa weeye wixii waan weydiisanay marka annaga doorkan ku lahayn waxay caawimo waxaan weydiisay taasay wayna siiyeen laakiin talada maamulkeena doorashada qabashadeeda dib u dhigideeda horisiya qaabka loo qabanayo qaran baan inaga madax banaan komishiga doorashada iyo xilkaas saaraa dawladana waxaan ugu baahanay gaaraan xagga dhaqaalaha iyo security-ga nabadgelyada labada qodob baan iyana weydiisan jiray komishigu ma hawshu wadi jiray marka imikana komishigu way noo dhisan yahay dhaqaale waynu helaynaa dadkii way tababarteero shan doorasho la soo qabtay aftii dastuurka lixda goor baan wax qabanay waxa weeye diiwaangelinta baa la sameeyay muddada imika haysanaa waa 5 bilood iyo xogay inta waxaan filayaa waa lagu dhameyn karaa wax kasta kaararka la qaybiyo oo komishigu qaybiyo oo qodobkooda oo ballan qaaday kaararka qaybinayaan dadkii la diiwaangeliyay marka dambe in la sameeyo goobi doorashooyinka waa loo leeyahay dadkii xiriirka qabanaya way iska dhisan yihiin nabadgelyada ciidamadu waa joogaan waxaan filayaa marka in doorashada sideed ahayd oo ugu talagalay u dhacayso waxa jirtay dhawaan wasiiradii xisbiga ka soo jeeda kulmiye iyo xukuumadda ka tirsanaa iska casili waxa ku biiran xisbiga kulmiyada iyo xubno kamid hoggaanka xisbigiina saameynta leeyahay tukanaya ragaas أنا مكحسو ما أدري واحد لي التالية مدحوين دورسوي. كنت فهمت كم تحسيش. وحوي كم هذا حسب كمر كان لتشوفه قفكو حلك وهاي مركا عوش أو قاضي يبوك هذا كنا مركا قرضا وأنا أركي دوان داوني سود داوني سوون داوني لكن ما تشعلين عن حسبي هذا مدي مكفالك سوي يعني أنت دورسو ما قاضي. العبد هذا واحد هاي شخصيات كالسومال أنا كوارترستو دولده هرنا حيل بطل سوقته. ما تابع حلي كل جوري اللي كشروا أي مكان سنة كانوا يشوفونه ساحة سياسة السومال سيادة حالة اللي كشري جودي هان السومال waxaan u arkaa xaalad wanaagsan inuu ku jiraan nabad baynu haysanaa imika Hargeysa caasimada joog alxamdulillah nabad wanaagsan ma haysanaa dalku waa la leeyahay si fiican baynu u soconaa anu taan ka digay waxa way xisbiyadii oo qabiil laga noqonay oo arkayso xisbiyadii halkii dadka elite-ka ah wax garadka ah ay ka hogaamin lahaayeen maandooda waxa soo galiyay Facebook doorashadii 60kii 3 kursi iyo goob walba ninka laga doortay sida kii dhacay kii faysay saddex xisbiga ku dirtamay SNL
USB iyo NUF waxa weeyaan mabda dadku laba markaa qabiilna ma ahayn laandheere laagaabna ma ahayn meel walba waxa soo baxay USB iyo SNL NUF kursi quraasho kursigii Michael qura mabda baa lagu soconayay maantana inagoo soo maray 6 sano laga soo wareegay waxa weeye waa hab dhoobo walaaqo caruurnimo oo qabiil dib loogu celiyay ayaad moodaa in wajigii la saaray markaan u taan ka digayaan ku talinaya waxa weeye xisbiyada majrooda laga daay qabiilka بدل إنك واحد أركي وراقب أركي شوران ملك قرن ولا بيش مستنبات كحزب وطني واحد أيا بيش الدكتور أحمد لقى حمد قري رالي قال يسوي بلان قاعدة يا إن مارتي وربيرت الشتيوتي هالكاسان راني بيشرت حسبي ذو إن فيتشور سين عقلي مسك حوين الأفكار وحوين ريرنتي ولا ميل ولا مركز رامتشير ولا منه ولا لا أي متبحث قال إنه ولا هم بولي مركز لقى دايو وحلي أنا ودقني ما قبل حنيا حسبيدا اللي قبيلك الله عنينيو اللي ريهب waxa loo reehab laga diiday wixii adduun karo talabada inagu ceebana doorasho dib loo dhiga maaha wata reeraha laga dhigayo marka ayaan laga dhigay reeraha laga daayo reerana ay ka tan odayaal reer hadii kale xisbi ma noqonaydo waxa noqonaysa golo qabiil bay noqonaysaa meesha marka aanu taa ka digay wata adu shakhsiyad sidoo artaa yani labada xil yani xisbiga wadana uu kala dhiibay Cabdiqaadir Jibde iyo Xirsi oo yani gudoomiyaha xisbiga iyo hogaamiyaha xisbiga وبربوسل midna wali xal loo badhiibay go'aanka waxa iska leeyahay markay Congress shir isugu yimaadaan tartan baa imanay xisbi dimuqraadiga waxa laga yaabaa kale ay soo baxaan lamba maartay la tartamaan marka lama oran karo imaka wax dibadda lagu dhameeyay ma jirto waa hindisi oo daras kala markuu fagaaray yimaado wixii ka soo baxun baa la arkaa